asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akheerta qiimaha iyo qayaana ka wada meel walba aad joogtaan habeenimo wanaagsan waxaad leenahay cawaa kusoo dhawaada barnaamij xiise leh. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo cawaa ku hoyanaya magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay halkaasi shacab fara badan. hase ahaatee shacabka soo dhaweyntiisa iyo maamulka ka sokow waxaa magaalada lagu dul arkay diyaarado military taga u kaca helicopteriskana loo yaqaano kuwaasi oo gaafureegaya magaalada gaalkacyo duleedkeeda iyo magaalada oo dhan. haddaba diyaaradahaasi caawa ku hoyaday magaalada gaalkacyo iyo waxaa loogu arki waayey magaalada garowe iyo boosaaso iyo dhulkii uu madaxweynaha marayay dhulka puntland ayaa waxaanu kala sheekaysanaa saaxiibkan axmed aljaziira. waad mahadsantihiin muqdisho t v cawkiir aduguna waa mahadsan tahay. waa sida adigu sheegtay diyaaradahaasi waa ay jiraan oo waxaa lagu staafgareynayay lagu ardeynayay madaxweynuhu. sidoo kale sawiro kale xasaasiyaad aragteen waxaa ay ka muuqdaan in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo halkaasi xulafo weyn ka helay oo garbihiisa taagan yihiin cabdiweli oo ka soo raacay magaalada boosaaso iminka la socda farmaajo oo aada moodo wixii aanu niri wixii farmaajo u sheegay cabdiweliba kaafi kala dheereeyi kaliyiin oo wax weynba u sheegay tii khudbadii cabdiweli aada maqlaysin oo ahayd inuu yidhi dowladda china saada siiyo ay ku shaqeyso soo marka farmaajo shaqo wacan buu qabtay iminka gaalkacyo joogana dee shaqo weyn ayuu qabanayaa. hase yeeshee waxa weeye magaaladu waa magaalo khad cagaaran ka jira layskuma aamini karaa dhowdii ciddii wax ku yeeshay ma garanaysa. marka in ciidamo shisheeye madaxweynuhu ay ilaaliyaan ayaa meesha ka muuqata uusan magaalada isku aamineynin. diyaaradaha gumaatiga u kaca helicopteriskana ay magaaladii dul wareegayaan. dad fara badanaa isku soo baxay ratiya calan lagu soo sawiray wax badanaa ka jira. marka waxaa kaloo magaalada aada ugu soo dhaweeyey wadada aerobortka ilaa magaalada gudaheeda shacab ayaa taxnaa waxayna iska jibinayeen shacabkii kasoo baxay boosaasadii qarnay iyo tuulooyinkii kale ee puntland oo aada usoo baanbaxay. boosaasada waxaay iyadanu ka dhigtay waa la ogaa. marka gaalkacyo waxay leedahay anigu mashaxradasi iyo madaxweyne soo dhaweynta annaga kama liidano dee inankana waa soo dhaweyneynaa. waxay ku faanayaan bay leeyihiin hablaha qaarkooda hadlay waxay yidheen farmaajo wuxuu kasoo jeedaa galmudug. waxay yidhaahdeen wuxuu kasoo jeedaa ra-iisul wasaaruhu galmudug kasoo jeedaa dee ninkii ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ay ku darsadeen xitaa waxay dheheen wuxuu kasoo jeedaa galmudug. marka xaaladdu waa sidaa aadna waa loo soo dhaweeyey. soo dhaweyn kuma yaraa marxabeyn kuma yaraa. hase yeeshee waxa weye arrintu helicopteriska magaalada dul xaabaya maxay yihiin? helicopteriska maxay yihiin? ma inagaa soo sawirnay soo tusaynaa may oo xaqiiqo jirta wey. helicopteriska ma kuwii galmudug miya? waa kuwii siyaad baraad ka qaadateen miya saaxiibyaal? waa su-aale. dee ilan anugu puntland kumaan arag diyaarad dul heemaysa. hadday jireenna lama lala tusin. adig laakiin diyaaradaad dul joogta magaaladii waa kuwii siyaad baraad ka qaadateen aad gaalkacyo ku qabsateen niyow waad ka dhexda mogta adiga waxaad ka dhexaysaa mamale dee gowaad ka dhigtee dadkii laba shaatiyada isticmaasha mogta ta shaati state shaatiya ninka qolyii kale oo soomaalidu ay madaxweynuhu isnacbaayan anugu isma necmin anigu ceedaas nacabna ma jirto anugu waa dhexdhexaad. marka helicopteriskaas waxay ahaayeen kuwa abisom sax waxay ahaayeen kuwa nato american ma iska lahaa turki ma lahaa. maxay idinka idin aamini waayeen oo magaalada usoo dul istaajiyeen? su-aashaasi waa qabyo jawaabteedana idinka le ka rabaa. dadkaas waxay tamayaan leh sidaa weye waxaad cod ku bedashay waxaas waa caadi dhacdeer wax codkaa bedelama codkan ilaah noo uumay. hase yeeshee helicopteriska magaalada dul joogay kasoo hadla oo warbixinteeda sheega runtana ka hadla. ilaahay ka cabsada idinka naftirkeena anugu lacnada ay ku taala idama dhahayno khayr baan idin rajeynaynaa iyo caafimaad iyo horumar. laakiin helicopteriska maxay idin aamini waayeen farmaajo tiimkiisa? waa cabsi baa jirta. marka cabsidana waa idinka qura.